walaalayaal maanta kelmad kooban waxa aynu ka oran doonaa xanuunkan maalmahan caalamka saaqay ee China ka soo bilaabmay Shiina xanuunkan oo virus corona marka af carabiga lagu akhriyo la yiraahdo ama coronavirus waa xanuunada Ilaahay oo keeno وانا امتحان ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مصيبة الأعلى إلهي قدر كيس يكون أعلى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم حنون كاي سقع شاينا يشينه كبلامن حنون كاسينتي أيانو بلامن وحعجيبة هاي المسلمين تعالم كا أي أدو عينيين مالمها كهر dadka muslimiinta ah ee Shiinaha ah ee Ilaahay rumeeyay iyo dawladdaasi sida ay ula dhaqmayso ee ay u garaacayso ee ay u tumayso ee ay dhibayso iyadoo caalamul islaami oo dhan looga ducaynayay maalmo yar ka hor intaanu qarxin xanuunkan waxaynu ognahay waa cajiib wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay unbaa ciidankiisa إلهي أمبأ عيدا كيسا ومدي مسلك هيدا سأل لور دي بي عالم كي أردن دقاليه سي دولتي وغوينيد أما تين لباد بين نقطة إيه دوني سبع عالم كين النقطة تشاينا أقول دقالها بدن عالم كأقول رادين بدن وحانا تسالي يدين كفر الإمة كإنغا أين كحرنا هاي بدي عدين أردني تشاينا كحرنت إنجليز كان تجي بدأ يعدي سبب إنجليز كهذا كيسان أنت أقول بدن تشاينا كيمني وعجيب عالم كيس داها المسلم كديبية أود لها أي إلهي عيدا يرو عيدا كيسي كم إذا صادري ومجلسين لو بحية كورونا فيروس وعلى مدها أولي دخاترت إنه شيئين كوينا يكوا كلام أي شيئين أن كدوانين على مدي هرجبك حمد ير اللهم صل على محمد دوف سنكأ قفع وحنون كي هرجب كي دعيتري على مدي اسم بيكون شيء جيانو لكن ما دربوا إنه هانشري على مدهاسي وحكى لا إله كقدي وحكى له عجيب وكوي هاي إن سرعة انتشاره سيدا دخسها بدن ee uu gudbayo shalay markuu masaakiinta garaacayay awood buu u sheegtay madaaradiisa iyo dekadiisuna way camirnaayeen shalay oo aan daawanayay madaaradiisa waxa weeye waa lagu kala tagay madaarkii diyaarada ay u dhiibaysay ma jiro waa laga cararayaaba imaka Shiina markaad maqasho Shiina waa laga cararayaaba Shiina mashiinu ka yimid baaba la leeyahay waa bal inaga ilaaliya China ka yimid wama ya'lamu junuud rabbika illa hu absida ugu weyn ee haysataana waa xanuunka iyo dhibtiisa caalamkii oo dhanna waa wareersan yahay xanuunkaas laga wareersan yahay hadaba walaalayaal waxaan xasuusanayaa aayada quraanka kariimka ah ee ilaahay reer caad uu kaga sheekeeyay fa amma caad fastakbaru fil ardi bighayri alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa caad way ku kibirtay dhulka waxay yiraahdeen yaa maanta naga awood badan ciidan ahaan dhaqaale ahaan yaa maanta hor dhigan kara deedna ilaahay wuxuu yiri awalam yaraw أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إله إيجا أبورينو كأود بدن يهمياني ترى أوجين إنكي هل كامري أيا أنت فير سير لجوسي داي أيا عبادك أيا عبسيدا كذا عيسى يا ميسا إلهينا مركو دونا عيد مدي سوا دويني ويكلا دويني أودي عالم كقوة هيستا النوكليير كهيستا دقالي هيستا إلهي فير سير أنتو كسو داي أي علبتو ذا شركرة وأود وآيات إلهي أو إنكو عبرة قاضنين
انت هدي عن كدغو قدر الله وما شاء فعل قفك مسلم كأ أما الدين الإسلام كسيدي أرمها النوع أنا يحنون ندم مركي فدان محي كتري إنه رنتي أن قصي ديراني قلبك وكوبان أيوم بان رنتي يدين شيء إيجا عبسي بها هيسا سيدي سنة بني آدم كنت بعد بقول عبسي وي كترته لكن قفك مسلم كأ نوع كواس وعبسنا يعني وما عبسنا marka aad arimaha noocaas maqasho in shaki iyo cabsi ku gasho maaha waa inaad ilaahay u noqotaa waayo ilaahay baa caalamkan ka taliya yaqiinsanaataana wixii alla qadaray inay ku dhacayaan wixii alla aanu ku qadarin inay ku haleelin ilaahay baa jalla jalaaluhu quraankiisa wuxuu yiri qul man dhal ladhi ya'simukum min allahi إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وريا إذن كعلن كره هدي إلهي لب إذن لدونه أما دافي وحونا أكسن إلهي لدونه يا كعلن كره إلهي بقى عندك هيه قفك مسلم كقدبك كواد إلا الدون يو وحوي إنه الروميسنا وانا تقول حيسا مسلم كإيا كأن إلهي الروميسني وحي ألا قدر إن يدعيان أو آني ساقين أو إلهي الروميسني هاي dabeedna arimaha oo dhan qalbigiisa way degayaan waayo wuxuu og yahay wixii alla u qadaray inay ku dhacayaan waa yaqiintaas la doonay qodobka kood waa ka walidaalika nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaabadiisa taas ku rabay saxaabiga abdullah ibn abbas isagoo oo waaninayo la yiri ogow ummadda oo dhan hadii ay isugu tagto inay shay kugu anfacaanay shay wanaagsan kugu qabtaano adiga ay kugu saacidaan shay kugu anfici maayaan oo kugu tari maayaan ilaa shay ilaahay ku sii qori mooyaan hadii ay isugu tagaan ummadda oo dhani inay ku dhibaan oo adiga shay una ay kugu dhibaan ama si una ay ku dhibaana kuma dhibi karaan waxaan alla ku qadarin mooyaan mar hadii aqeedadu taa tahay warwar iyo walaacinaga inaga dheer waa qodobtaas qodobka labaad ee muhiimka waxa weeye in asbaabtii la yimaado asbaabtii diintu inoo jidaysay in la yimaado asbaabta maxaa kamida inaga qodobka ugu weyn waxa weeye inaynu ilaahay ku xidhnaano mar walbana ilaahay barino ilaahayow wixii dhiba adaa keena ilaahayow dhibo dhan naga hay inaynu dhahdo ilaahay muxuu leeyahay wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an nabi muhammad hadithka sahih muslim ku jira muxuu yiri ducadiisa maxaa kamid ahayd اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك إلهي وحن كان مجنجليا أنكاه هوسكلي أديكا إن أديكا بتبادي سوى حن كادونيا من زوال نعمتك نعمة عاد إسيسي إن يجسوشو نعمة محاوجوين نعمة الإسلام إن الإسلام نمدو كاسو شيء إلهي كما جنجل تعافيماتك كميدة تنبت قليدا كميدة خير كإلهي كسيه أردن با كميدة أقوان هضيت وحل النمعة إلهي إله نعمة إله يو إيأتكي أو إله هيقسولي وفجاءة نقمتك إله وحن كان مغان قالي فجأة نقمتك سكدسة إن أرقوسي عقابك يقولعه وحوي أنا سلما فلانة إن مصيبة يقول عدين إله وضع كان مغان قالي اللي أداء أغان وحموقيه وتحول عافيتك عافيتي عافيمات كان هيستي إنه إله يو إسكا كي بدلو أو إله يو عافيمات كآدي قاضو أو حالد أنتي هنا أدي يقول بدشو إله يو أذان كعس قضايا إله عافيمات كإي إياتك وجميع سخطك عرض هذا أردن إله يو وان كامان قال إن هذه عرض والدعو اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام دعوينك النبي كم هاي إله يو برص وحنون هذا وجود وحنون كدب كان سرية ديرك كلها إله برص أذان كمان قال والجنون حنون كمسكح هذا كلها الدمر كلها يقف كي كنترول كي كقاضينا إله أذان كمان قال والجذام حنون خطرها أو وقت جا ولي بآدو تري أو حبنها إما كانت ترى عالمك وضمك كميدا أو حبنه إني وضع جوان أو يصور دعانا إله أذان كمان قال إيوه وسيء الأسقام حنون نضو أردن حنون نضو حنون أردن أذان كمان قال
aidis hadday tahay coronavirus hadday tahay balaayo kale hadday tahay mid aynaan garanayn hadduu yahay ilaah wadaan kaa magan galay in ilaahay la baryin diintu waa asbaabaha ayay ka mid tahay ilaahayow na baalmari ilaahow naga badbaadi oo ubadka nooga badbaadi oo nafahayga nooga badbaadi oo dalka nooga badbaadi oo dadka nooga badbaadi oo dunyada nooga badbaadi oo muslimka oo dhan ka badbaadi inaad saa tiraa waa sabab waxaa ka mid ah asbaabta oo saddexa ta hore yaqiin saxa la kaale ducayso waxaa asbaabta ka mid ah walaalayaal in la qaato akhdu alxiyada walwiqaaya in la qaato diinta ay noo jidaysay wax alla wax imika qoraan waxeenni un bay ka yimaadaan islaamka oo la dabaqo ayaa wax badan lagu helaya in ka hortag la sameeyo diinta islaamka ay noo jidaysay imanka markaan akhriyey ee aan baadhay een culimmadii waxa ay ku soo urureen in la isilaaliyo in faraha la maydho in saabuun lagu maydho ayay ku soo aroortay in la isilaaliyo in qofka qaba laga kantaroolo اللهم صل oo laga hayo halkii ay ku dhacday aan la gali waa inta ay sheegeen imanka culimada caafimaadka iyo fayadhowrka ka waranta intaas ay ku soo ururaysa laakiin islaamku si ka qoto ballaaran ayuu hore uga waran islaamku marka ugu horeysa diintu shan arimood bay u timidba shanta arimood ay diintu u timid ee maqaasidu shariica la yiraahdo waxa kamid ah inay nafta ilaaliso diinta islaamku naftana la ilaalinaya aqligana waa la ilaalinaya maalkana waa la ilaalinaya qofka sharaftiisana waa la ilaalinaya iyo qodobkii shanaad diinta ugu muhiimsan oo tashanaada waa la ilaalinaya nafta in la ilaaliya waa qawaacid iyo qodobada waaweyn ee diinta islaamka inoo dejisay ilaahay baa xulay wala taqtulu anfusakum wa nafina hadilina ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفينا هلاك كتورنا ستوسا إيا سددبن ستوسا هودنا دونتا هيسكو فنينا سددبن هودنا وحي كو سببينا قيمتها الله إيمان أو عاف ما درضوا أي كميتاي أو ديال قالوا لأنتو أي كميتاي أدقوا يقينسا إن إلهي عافمات كبحيو وحي الله كو قلت لقلنا أني كسيجي دينة إسلام كو ولا ليال أدي صابون هلقوا فرح الشؤون ليدي وانا الرن واسد علماء الله يهين او رنتي التي جابيه ومصائبات كإمك انها يستن نظافه حمد انغا ومدينا الهي حنونك اي نوما كينو الهي هينغا الالي لكن حق نظافه وينو كهوسينا سوليغي بو قف كسو بخيا waxa weeye waxa laga yaabaa in aanu xataa saabuun iyo tayd iyo waxa la mid aanu isticmaal waxa laga yaabaa microbe iyo jaraasiim inaad soo qaado oo xanuun adigu aad ka qaado cid kale intaanad gaadhin diinta islaamku walaalayaal gebigeennaba nadaafadda ayay inagu dayrtayba waxay diinta kala barhka ad-duhuuru shadru al-iimaan nadaafadda iyo isnadiifintu diinta waa ka badh ay tiri diintu nadaafadda balse ugu hadasho eeg waxa lagu yiri 5 jeer maalintii weysiiso ugu yaraan nadaafadaada ilaali imise xubnoodo jirkaaga aad maydhaysa waxa lagu yiri maydho maalinka jumcaha waxa lagu yiri maydho سنة مؤكدة أي شافعي ترى سنة هذا علماء قارنا واجب بابي واركا ودنبيل قفكو هدي أنا صوم أيضا مركا قوابها الله يسوق إيمان أيه مهم كاس صوم يدالي لسنا جمعها عيدها دينة إسلامكو وحي كهذا الشيء إن جاسدي الله إسكمل الله إسكن نظيفيه وحي كورنتي شركي إن للنظيفيه وحي كورنتي أفكا إن للنظيفيه الله عضيه وحي كورنتي عديها أو أسكا قردن كسو قبل لها إلا إسكا قروه waxay ka warantay in cuntada aynu cunayno iyo sharaabka aynu cabayna inay nadiif ahaadaan waxay ka warantay goobaha aynu isugu imayna sida masaajidada iyo majaalista iyo fagaarayaasha in la nadiifiyo in dariiqyada la nadiifiyo in meelaha aynu ku nasanayno la nadiifiyo in guryaha la nadiifiyo in daaradaha la nadiifiyo intaba axaadiis ba soo wada aragtay innaguna xashiishka gurigeena aynu ka soo qaadnaayo guriga hortiisa ayaynu dhignaa ama xaafadda inaga soo horteedeen ku daadinaaba anu mar hadaan gurigeygii soo dhaafiyo waxba igama gelin hortaydu ha gubato hortaydu uska iyo caafimaad xumaha qaado waa sawir noocaas ka muuqanaya diinta islaamku walaalayaal waxa soo dhan waxay uga jeedaa ummadda muslimku ummadii caalamkan ku hogaamin lahayd nadaafad inay noqoto marka xanuun dhaco xanuun faafaya oo dhaco waqtigeennii waxaaba dhacay diinteennu
ay fidaysay xanuunada daacuunka kaloora ayaa aad u faafay maxay diintu ka yeeshay diinta islaamku waxay ka yeeshay inagoo yaqiintii iyo kalsoonidii qabna waxa ay diintu tiri wafirra min almajduumi kama tafirru min alasadi bal hagda xadiidka qaybtii hore waxay ku tiri laa cadwa wax la isqaatiyo oo intuu iska yimaado hebelkani hebelkan ku tallaalayaa ma jiro oo isagu iska imanaya xadiiska qaybtii hore intaas oo dhan saagada xadiiska qaybta dambena wuxuu ku leeyahay wafirra min almajduumi ka carar ka juudaamka qaba xanuunka gudbaya ee juudaamka ee qofku shirkiisu googo ayuu soo dhacdhacayo ka carar hada ka lugay maaha ka carar kama tafirru min al-asad sida libaax uga cararaysa haduu kugu soo baxo la cadwa ana xadiisku qaybta hore ku yiri sida la isu waafajinaya bal ee hada xadiiska faham la cadwa anu xanuun kana qaado hebel baa qaadsiye ina tirada kuma banaana xanuunku wuxuu ku gudbaa bimashii'ati illaahi wa biidnihi ilaahay baa gudbiya xanuunku wuxuu gudbaa marka ilaahay gudbiyo ee hebel baa markuu isoo ag fadhiistay xanuunka igu tallaalay ma jirto ummadda muslimka ama xaal la ilaalinaya in dhaqanku ka xumaado kana markuu isoo ag igu ag hindhisayo dabeedna waan qaaday kani cadow uu noqdo xanuunka sida ay galay iyo masaa'ibta ay ugu dhacday kaasa ay sababaha la ya xanuunka keena الله يا قاضي الله ورتو قاعده فهم بالله لكن دي حنونكو الهي حقيسو كغدبا عيد ugu talagalina wuu gudba markaas lagu leeyahay hada ka carar hadii qof xanuun culis ku dhaco dee adigu iska dhinac ka noqo oo qofkana meel gaar ah ayaa la geeyay diinta samaysay xadiis kale wuxuu ku leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ka soo arooray waxa uu leeyahay ida sami'tum bihi bi ardin daacuunka hadii aad ku maqashaan dhul oo ka dhacay fala taqdimu alayhi hagelina dhulka xanuunka culus ee daacuunka ku dhacay hadaad maqashaan hagelina wa ida waqa'a bi ardin akada hadii uu dhul ku dhaco wa antum biha ay fiha idinkoo dhulka ku dhex suganna fala takhruju haka soo bixina fala takhruju minha haka soo bixina meesha ku dhacayna joog oo ka soo bixin adoo caafimaad qabay iska dhex joog ha soo gelin meeshii fayoobayda hore haddii aanad marka hore meesha joogin daacuunku ka dhacay ama kalooruna ha tagin balse diintu dadka way ilaaliso marka culimadu waxay isweydiiyaan qofkii xanuunka qabay isaga inaga haya laakiin qofkii aan xanuunka qabin laakiin meeshii xanuunku ka dhacay joogay ee caafimaadka qaba isaga maxaa loo leeyahay joog adigu waxa laga yaabaa in culimada adibaduna dhaqaatiirtuna ay ka hadleen rasuulullaahi muxammadna go'aanka guud u siiyay markay imaka baadhbaadheen waxay yiraahdeen waxa laga yaabaa inuu fayraskii sito inuu xanuunkii sito qofkani laakiin manaacada difaaca jirkiisu inuu aad u xoog badan yahay deedna difaacan jirkiisa ee xoog badan darteed markii la baaray ama la baaro aan la arkaynba deedna laga yaabaa mar dambe inay ku soo baxdo markaa hortu joogo hadduu xanuunka ka wada baxana dee insha allah waad soo bixi haddii kan la joog kumanaan kun oo kale haynaga dilin ama waxay yidhaahdeen culimmadu waxa laga yaabaa in waqtigii xanuunkii inuu sido laakiin waqtigii xanuunka calaamadihiisu muuqanayeen ee uu soo shaac bixi lahaa inaanu gaadhin deedna aan la qaban xanuunkii aanu soo bixin imika 14 cisho ku soo baxaaba imika yidhahdaan xanuunkan sidaas darteed walaalayaal bal diintu eeg siday markaasaa waxay qadar ilaahay baad ka cararaysa Umar bin Khattab oo yidhaaheen waa sidee masuul nafirru min qadari illaahi ila qadari illaah war qadar ilaahayna waan ka cararaynaa qadar ilaahayna waan u cararaynaa buul qadar ilaahayna waa ka cararaynaa qadar ilaahayna waa cararaynaa markaan soo ururiyo walaalayaal waxa weeye inuu nadaafada ilaashano waxa weeye inuu ilaahay ku kalsoonaano waxa weeye inaynu ilaahay barino sideedabana ilaahay naga hayo muslimka oo dhanna ilaahay dhibta ka dulqaado taa waa barina ilaahay waxaad si ogaataa gebagabada marka ilaahay imtixaan keeno inay ujeedatay haddii nicmo lagugu imtixaamana ujeedaa laga leeyahay haddii dhib la isku imtixaamana ujeedaa laga leeyahay taan dareesanaano